wax kasta oo macruuf ah khayr ah waa sadaqa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam adduun bay noqon kartaa la bixiyo awoodaad qof ku caawisaa bay noqon kartaa iyo quwaddaada aqoonaad qofka siisaa bay noqon kartaa ood cilmi ku caawiso arrin aad ku tarto qofka oo aad kula taliso lianna almustashaara mu'taman ayay noqon kartaa markaa afartaa arrimoodba waa macruufka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sadaqada marka la eego min xaysu alxukm laba qaybood bay noqotaa qayb waajiba iyo qayb sunno ah qaybaha waajibka waxaa ka mid a nafaqada ama masruufka la siinayo cidda biilkoodu kugu waajibay haddii ay tahay xoolihii iyo haddii ay tahay addoomihii berigii hore la haysan jiray iyo haddii ay tahay dadka imika aynu mas-uulka ka nahayba waa ubadkeenna ooriyaha iyo waalidka intaba inaad masruufka siisaa waa waajib waxaa kaloo sadaqada waajiba sakada iyaduna waa sadaqa un inama sadaqaatu lilfuqaraa siduu ilaahay ku tilmaamay aayadda waxaa waajibaya jihaadkii oo isagana marka loo baxayo madaxweynaha muslimiintu idhaahdo usoo baxa wixii lagu bixinayna waa waajib qur-aan iyo xadiidbana wayna fareen dadka had iyo jeer gaajaysan ee agtaada ku gaajoonaya iyagana in wax la siiyo waa waajib waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican ilaahay baa wuxuu tilmaamay qofka naf badbaadiya inuu ka dhigan yahay bulshadii oo dhan mid badbaadiya oo kale marka qof agtaada ku baktiyayo oo sii dhimanaya inaad gaajada ka badbaadisaa waa waajib waxay sadaqadu waajibtaa oo kale nadarka haddaad matal isku waajibiso inaad sadaqo bixiso sunnay markii hore ahayd laakiin way waajibaysa xaqu dayf baa isaguna waajib ah hadday martii kuu soo hooyato meel cidla adigoo jooga inaad wax siisaa waa waajib haddaad siin weydana dembiilaa tahay marka inaha aynu sheegnay 6daa qayboodba ama 7daa qayboodba sadaqada iyo waxbixintu waa waajib intaa wixii ka soo hadhayna sunna ayay noqonaysaa sadaqada la bixinaya qodobka saddexaad waa xigmadda ku jirta inaynu xoolaheenna wax ka bixino maxaa xigmada ku jirta xigmadda koobaad waxa weeye addoonnimada aynu xaqiijinayno ilaahay baa ina faray subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay uu ku faray inaad fulisaana waxay sheegaysaa inaad addoonnimada ogoshahay marka ilaahay baynu ku adeecaynaa waa kow waxa labaadoo ka mida xigmadaha ku jira waa shukrun linicmati illaah ilaahay nicmadiisii baynu ku mahadnaqaynaa xoolahan ilaahay isagaa iska leh iyo xoogga iyo waxaynu haysanoo dhan marka waxa uu ku siiyey markaad wax ka bixiso ilaahay waad u mahadnaqday waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih waxaa ilaahay wakiilka uu idinkaga dhigay ee ammaanada u haysaan wax ka bixiya buu ilaahay taas macnaheeduna waxa weeye inaynu ugu mahadnaqna ilaahay faa'iidooyinka waxaa ka mid a tadhiirun min ashux bakhaylnimada aynu iska nadiifinayna bakhaylnimadu waa cudur waa culays saaran qofka waa ceeb ku xeeran hadduu qofku infaaq sameeyo u wax bixiyo macnaheedu markaa waxa weeye inuu nadiif ka noqday lexejecla xumadii adaygnimadii cuduradii nooca ahaa ilaahay baa wuxu uhi wa uxdirat ilanfusu shux naftii waxaa lagu soo ururiyey wax la ydhaha bakhaylnimo mar kale waxau uhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun dadka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftooda way liibaaneen marka inaad bakhaylnimadaa ka xorowdo ceebta leeda ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba waa liibaan sidaa qur-aanku uu sheegay faa'iidooyinka waxaa ka mid a ama xikmadaha ku jira takhalluqu biakhlaaqi illaah ilaahay akhlaaqdiisii baynu qaadanay rasuulkuna wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam takhallaquu biakhlaaqi illaah akhlaaqda ilaahay qaata akhlaaqda ilaahayna waxa weeye inuu rabbi waxuun bixiyo isagoo aan u baahnayn markaa tilmaantaa wanaagsan baynu ilaahay ka qaadanayna xikmadaha ku jira waxaa ka mid a cilaajun lilqalbi min xubbi dunya naftii waxay ka daweyneysaa deeqda iyo waxbixintu jacaylka adduunyada
وجعلك الدنيا قفك وكبدنيا إلهي ذا وحده وإنه لحب الخير لشديد قفك بني آدم كاي مالك جعل كيسة أدبو قدريه وكان الإنسان قتورا بالله جعل هذا قوي قفك بني آدم كاي هذا حنون كا نفط كسو قالا أما عذر كا الدنيا ذا كسو قالا يجعل كذا وحكف ضدين هي قلبك مركعات وحياي هيستي كو أذيك يسوي وحكب حسب وحل حاله فحكمة هذا كم ذين وحبحنه ومجلبة للمحبة وحيسوتشي ذاك القعر قف كذا وحسيساو كجعلانيا كذا وحسين ويدانا وكنعيا بدل الدفر كرين وي جبلت الأنفس بحب من أحسن إليها وببغض من أساء إليها قفك بني آدم كاوح على إسكاقا أبوري عدة وحسيسة إنو إسكتش عليه بني آدم كاوح إسكاقا حتى حولها كجعلانا يا حيوانك بهالك وحونا اللباحة إيا حيوانا ذا هديات عنا ذا ورون تاي وإسكيه الشينيس مركاين بدن وحالا ينقود ليا أبا ماذ وحيسيس وحالا يا أبا دادك قاركود إن هذا ركتي يقو قف عايا وارمحاضو عايا سهبن ما وحبو كاهايا ما وحبيقا ماهايا ما وحبو كاردعي ما وحبو كوبيستي مايا لكن واقع عنتي قوضا يقول كليا هايو وحبا ما بحيو marka wuxuu kugu haystaana waaba xoolaha shaqaysatayba marka kuma oranaya ma cala almuhsiniina min sabiil dadka samafalayaasha ay dambi mala arintu ma ahe aniga muxuu wax igu dhiibi waay oo wixiisa uu haystaa way sidoo kale maalka waxa ilaahay baa ku difaaca subhanahu wa ta'ala dadka aad wax ka siisaana uu ku difaacaya balaayada ilaahay kaga joojiyaa dadkan aad wax siinaysaana xoolaha way ilaashanayaan way u ducaynayaan sheedaasay ka jirayaan waayo maalkaas kadan ka qaata sadaqada la iga siiya hadii kale wuxuu oranayaa tuugu ha qaato cadawguna ha dhaco ma horaan wax ugu qabay waxba kuma qabin xigmada waxa kamida tadhiir lil maal way nadiifinaysaa qofkana way nadiifisaa waxa la yiraahdaa sadaqadu xoolahana way nadiifisaa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم حولها واحد كقادا سكك قادا ما الصدقة أتكون نظيفين صدقك مركا قفكنا وين نظيفين مالكنا وين نظيفين رسول كحول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول إلهي ما أقبله والنظيف بانا يهين صدقة لغا سو بخيي وعمال توغا إنها سوى قضبك صدحات بها قضبك أفراد waxa weeye in dhiiri gelinaya inaynu jeebka wax ka soo saarno account-ka wax ka soo saarno qasnada wax ka soo saarno meelaha caamka ah iyo meelaha khaaska iyo shakhsiyaadka ku bixino danaha guud iyo kuwa gaarba qodobka afraad waxa weeye fadliga sadaqada maxaa islaamku uu ku sheegay ee bushaare iyo baraara iyo barwaaqaha ku jira waxa weeyaan tuujibul janna jannada ayaad ku helaysaa ay ku sugaysaa inaguna jannu baabaynu socono waxaynu adduunka u hawlgalaynaa waa inaynu helo janno ilaahay wuxuu ka waramay dadkii jannada galay muuminiinta ahaa maxay talow jannada ku mutaysteen sifooyin bay leeyihiin qiimo badan oo qaaliya waxa ka mid ahaa kaanuu qaliilan min al-layli ma yahjacuun وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وحيابها الجنة كل كلام وحكم إذا عبادة فرها بطنة إذا هذين كعبادة سنيين إلهي ويدب داف ويدي سنيين يحوله هذا أي وحكسين شرين كوحويدي استه يكا إسكاء مسابها الله وضعها وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كعنته هرسنا يلا إيدي أنا وحبي سين شرين كيسوا محروم كأهم وحبه ينين هذا أنا وحبه ويدي سنين ويسين شرين وقرشنا ويلهاي قراعشنا ويلهاي كقراع ذا هذا إيدي ويكتابن شرين كمركا وحبه ويدي سنين ويقرن شرين واصف الله وهلا الجنة دي وحيابها فضل هذا وحكم إذا وحي كردسا وحد هيسته
wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay baa wuxuu ihi wax alla waxaa bixisaan anna waa soo bedeli waaba ballan ilaahay uu qaaday ilaahayna ballantiisa kama shakisanin subxaanahu wa tacaala yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay wuxuu ihi wixii riba ay ku jirta alla wuu baabi'iyaa maalka sadaqada laga bixiyana ilaahay baa barakeeya oo koriya oo kobciya man da aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lah adcaafan kaiira yaa ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan yaa wax bixinaya wey ilaahayna wuxuu uhi waan u laablaabi doonaa faa'iidooyinka fadliga sadaqada waxaa ka mid ah tubcidu can innaar naartaas oo waxaa leed xanuun badana wax aada looga warwarana ah wax aada looga digay oo looga dayriyeyna ah qofka way ka fogeysaa oo way ka durkisaa oo ilaahay baa kaga difaaca ittaqu nnaara walow bishiqi tamra rasuulkeennii weynaa wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam war bahasha naarta la yidhaahdo gaashaan ka samaysta taasi way soo jihaysan tahay sadaqada kaga gaashaanta xabba timira jeexeedna ha ahaato warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu dadkii ilaahay kulaylka uga hadhaynaya maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ahaa qof sadaqo bixiyey oo aada u qariyey oo midigtiisa ka bixiyey fadligeeda waxaa ka mid ah annahaa tadfacu alamraada walbalaaya adduunka balaayadiisa iyo dhibka wareegayaa uu badan yahay cuduradana ilaahay waa kaga dulqaadaa dadka iyo xanuunada iyo caafimaad darrada xadiid bayhaqi warinayo xasana nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina buka sadaqada ku daaweey intood bixisaabaad u niyoon doontaa xanuun hebeloo ku haya inuu ilaahay kaaga caafiyo ama awlaadda kugu caafiyo ama ehelka ilaahay baa kugu caafin doonaa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a sadaqada sirta ahi waa tudfiu qadaba arab ilaahay cadhadiisay baktiisaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku yidhi sida had iyo jeer dabku biyuhu ay u baktiyaan saas oo kale ayaa dembiga iyo dabka iyo naaraha sadaqadu ay u baktiisaa waxaynu ku helaynaa sadaqada waa waxyaabaha ina dhiiri gelinaye dacwat almalak malagii ilaahay uu soo diray baryadiisa baryada malaga iyo ducadiisa waxaa lagu helaa inaad gacan furan tahay ama aada wax bixiso maalin walba waxaa soo degaya buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba malagoo midina waa ducayeen midina waa habaaryeen mid habaarun buu taagay midina ducaw ka wax ducaynaya wuxuu leeyahy allahuma acdi munfiqan khalafa ilaahay qofka wax bixiye bedel sii kan kale ee isagu habaarka la taaganina wuxuu leeyahy allahuma acdi mumsikan talafan ilaahay ou qofka wixiisa haysta dhimasho sii dhimashadaasi ma xoolahaa dhimanaya ma ehelkaa dhimanaya ma isagaa dhimanaya dee haddaad soo sokaysiisaad tidhahda isagaa dhimanaya maxaa u kala hadhay waa habaar malag habaarka malaguna wax la fudaydsan kara ma aha sadaqada waxyaabaha inagu dhiiri gelinaya waxaa ka mid ah laa yabqaa min maalik ilaa maa tasadaqt xoolahaaga waxa xaasil ku ah wixii aada sii bixisa ama aan garanna ama aan iska dhagatirne inta si dhaba kugu hadhay wax weeye wixii aada bixisa rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay yaquulu bnu aadama maali 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 qofka bani aadamkii wuxuu idhaahdaa xoolahaygii 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 daarahaygii doolarkaygii dahabkaygii intaasaan leeyahay waxaas u akhriyaa laakiin xoolahaaga waxaad leedahay uu nebigu uhi wixii aada cuntay eed xamaamka geysay iyo dharkii aada xidhatay ee howdheyrhka ka dhigtay ee baabiisay iyo wixii accountka ilaahay aada sii dhigateed sadaqaysa macnaheedu waxa wey labadan kale way kaa dhinteene inta sadaqada ahunbaa jirta inta kalena dad baa dhexlaya oo ay u soo dhow yihiinba ubadkaagii iyo ehelkaagii iyo ooryahaaga iyo waxaas markaa dadkaasina dee kolka ay gacanta ku dhigaan adigaba ku xusuusan maaya neef fadhiya ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qoyskiisii caaisha ay ku casuumad ku samaysteen neefkii way wada bixisay waxa soo hadhay un garabkeedii
markaasay tidhi caaisha allaha ka raali noqdee neefkii waan wada bixiye waxa baaqiyahun garabkaa waslad ka mida macnaa neefki si kalunbuu nebiguna u dhigay oo wuxuu ihi gebigeediiba waa baaqi garabka mooyaane adigu haddaad tidhi garabkaa baaqi anna waxaan ku leeyahay garabkaa maqan neefkan wasladan iminka aynu inoo soo hadhay taasun baynaan hubinaynu liqnaye intii kalea sii joogtagu waxaa ku jira sadaqada had iyo jeer asacaada nafsiya waxaan loo yaqaano oo dadkan iminka ummadaha shisheeye laftigooda waxay aada u baadi doonaan waxaa la yidhaha sacaada farxadda nasashada raaxada nolosha waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a bay qirayaan kuwa dee gaalaha uba aaminsanaynba sadaqada aaminsanayn dee iyagu cibaad ahaanba u gudanaynin qofku markuu wax bixiyo nafis buu dareemaabay iyo raaxo oo waxa uu ka farxinayaa qofbuu ka farxiyey qofkiina wuu umahadnaqay qofkiina wuu u duceeyey isaga laftiisina waajib inuu gutay buu dareemay markaa kolka qiyaaseen qofka maskaxdiisa iyo nafs dareenkiisa waxay yidhaahdeen dareenka sacaadada iyo farxadda kor bay u qaadaa waxbixintu oo qofkii wax bixiyey intaasoo arrimood buu ku farxayaa farxaddiisiina waxay keenaysaa nafis iyo nolol wanaagsan qofka wax bixinaya waxyaabaha ku jira inagu dhiirinaya waxaa ka mid a yastaxiqu alqibta waa qofka keliyahee la kaman karo ama la majeeran karo ama aada odhan karta yaa sidiisoo kale kaa dhiga rasuulka ilaahay wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam laba unbaa dadka odhan karta yaa sidoodoo kale kaa dhiga qof ilaahay uu dheeraad u siiyey cilmi ku camal falaya dadkana gaadhsiinaya iyo ilaahay qofuu siiye xoolo oo isaguna wax ka bixinayo meelaha khayr kale ku bixinaya laa xasada ilaa fi ithnayn xadiidkii saxiixa ah labadaa qof ma xaasinaysid oo ma odhanaysid waxay hayaan ilaahw yaa kugu soo wareejiya ama yaa dhaafiya laakiin waxaad leedahay alla u daa intooda anigana intooda in leegasii sidaa ay u dhaqmeen aan u dhaqmee sadaqadu waxyaabaha ay kaga sii fiicantahay cibaadooyinka in badan oo ka mid a waxaa ka mid a nafcuhaa mutacaddin cibaadooyinka midna waa qaasir oo qofku ku kooban yahay cibaadooyinka qaarkoodna qofka way dhaafaanoo way sii gudbaan oo imika haddaad dee salaad iyo sunno iyo tukanaysa adigu kugu kooban yahay ama aad qur-aan iyo dikri iyo wado laakiin markaad cibaadadan sadaqa la ydhaha bixinayso dee ummad bay gaadhaysa anfaceedii adigaba kuguma koobnee ummad kaluu gaadhaya cibaadadana ta mutacadiga dadka gaadhaysa way ka fadli badan tahay ta kale waxyaabaha ilaahay uu ku keeno waxaa ka mid a xusnulkhaatima khaatumada waxyaabuhu ilaahay ku wanaajiyay ka mid waa sabab linusuuli lamdaar roobabku way nagu yaryihiine waxyaabaha ilaahay uu ku badiyo roobabka waxaa ka mid a inay dadku wax bixiyaan oo dee ilaahay bay wax ka doonayaane ilaahayna wuxuu leeyahy idinku wax bixiya ana aan idin siiyo irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka dhulka ku sugan wax siiya ilaaha samada ku sugan ama xagga korena wuu idin siin doonaa xadiid saxiixa nabiga waxaa kaga sugan calayhi salaatu wasalaam daruur baa soo daayday buu hi maalin maalmaha ka mid ah nin baa wuxuu maqlay daruurtii wuxuu ka maqlay cod odhanaya beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi beerta hebel daruurtiibuu markaa halkii ay ku hoortay ayuu xaggeedii soo raaco uu yimi meel bay daruurtii ku daadayoo ilaahay uu ku horgufay subxaana wa tacaala meelihii kale o dhan intay dhaaftay beeraha ka midun bay ku hoortay beertiibuu u tegey iyadoo nin dhex jooga oo uu biyihii ku duduwayo markaa wuxuu ihi magacaa waxaa la yidhaha buuhi hebel hebel maxaad beertan ku samaysaa buuhi balin yaroo warbixina iga sii waxaa ka soo baxa 3 qaybood un baan ka dhigaa buuhi qayb waan cunaa qaybna waan ku maalgeliyaa dib baan ugu celiyaa qaybna sadaqaan u bixiyaa maxaad magacayga iyo waraysigan ii weydiisay buuhi arrintaasaan maqlay buuhi magacaagana daruurtaasaan ka maqlayay in roobkan ilaahay kuu soo kaxeeyna waan maqlayay sirtii waan helay buuhi haata waxa aada beeraha kale oo dhan roobka ku dheeraatay waan fahmay buuhi 3 daloolow daloolka aada sadaqaysanaysa inay tahy dee thuluthulmaal 330 inaad waxaaga sadaqa u bixisaa wax yar baa ahaa marka roobkan aynu doondoonayna waxyaabaha aynu ku raadinaynay ka mid
qofka wax bixinaya almunfiq min khiyaar الnaas dadka ugu sharaf badan buu ka mid yahay qofka had iyo jeer wax bixiya qofka ugu gunsanina waa qofka bakhiilka ah khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam idaa faqhu rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam dadka idinku gobsani waa dadkii waktigii islaamka ka horba wax bixin jiray ee akhyaarta ahaa ee sharafta lahaa markay diin barteenna iyagunbaa dadka usii wanaagsan sadaqadu waxay kordhisaa cumriga oo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam qofka doonaya cumriga loo kordhiyay iyo calafkaba qaraabadiisa waxa siiyo ha xidhiidhiyo marka qaraabo xidhiidhintii waxyaabaha lagu xidhiidhinayaana waxa ay ka mid tahay waxbixinti ayaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a qofka caasiga ah ayaa laga yaabaaba in lagu hanuuniyaba siduu xadiidkii saxiixa nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam ninkii habeenkii ku sadaqaystay qofkii waxadaya iyo gabadhii jirhkeeda iibsanaysay sadaqadu waxay leedahay haddaba si ay wanaaggaa faraha badana laga dhexlaya u yeelato shuruuday leedahay shuruudaha marka loo ilaaliyo ansaxeeda iyo aadaabteeda hagaagaya shuruudaha waxaa ka mid a qofka wax bixinayaa waa inuu yahay qof iimaan leh oo alla rumaysan haddii aanu ilaahay rumaysnayn waxbaba lagama aqbalayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan u qastiyey camal wuxuu gaal sameeyey waanaan baabiiyey dambas la afuufo baa ka dhigay camalka la qabanayo kolka ilaahay uu aqbalayo gundhig buu leeyahy ama sees buu leeyahy seeskiisuna waa iimaanka haddii iimaankii laga waayey waa guri hawada laga dhisay shuruudaha waxaa ka mid a cadamu lmanni waaladaa waxa aada bixinayso waa inaanad ku gallad sheeganin dadkana dhibaato ugu geysanin sidaana ilaahay kitaabkiisa kariimkaabuu inagu faray aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah uma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adaa lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun bushaaradaasuu ilaahay siiyey sadaqadoodu inay anfacayso oo aakhiro cabsida iyo cadaabka iyo murugadaba ilaahay uu kaga ilaalinayo ayuu inoo tilmaamay laakiin bishard waa dadka aan dhibaatana raacinaynen miskiinka dhibaynin huruufaynen haaraamaynin ean u hanjadayn kuna gallad sheeganayn hebel waxaasaan siiye hebel waxaasaan siiye buu leeyahy ama isagii buu leeyay sawtaan intaa ku siinay sawtaan intaa ku siinay sawtaan intaa ku siiyey wuu ku dul akriyaya macnaheedu markaa waxa weye dareenkiisiibuu ku tumanayaa qofka taasina waxay ka mid tahay aadaabteeda waxaa ka mid ah cadamu riyaai wasumca sadaqada yaad wax kaga doonaysaa ma dadka mise ilaahay baad wax kaga doonaysa cid kale ha istusin cid kale ha istusin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa kaladii yunfiqu maalahu riyaaa annaas hala mid noqonina qofka isaguna istuska ah dhibka iyo mana sheegashada iyo istusnimadaba ka daaya marka taa macnaheedu waxa weeye dadku hadday meesha joogaan iyo hadday ka maqan yihiin waa inay isugu kaamid tahay dadka iyagoo jooga iyo marka ay maqan yihiin labadaba isku sibaad wax u bixinaysa waayo isha ilaahay baad eegeysaa isha dadka ma eegeysa waxaa ka mid a shuruudaha sadaqada lagu aqbalo cadamu linfaaqi fi lxaraam meel xaaraana inaanad ku bixin xoolaha xaaraan inaad kasoo kasabto lama ogola amaad kasoo shaqaysato meel xaaraana inaad ku bixisana lama ogola meelaha xaaraamtaa waxaa ka mid a sida qofkii murtadka ahaa oo aada siinayso kii gaalkii kula dagaalamayay kaniisadii balwadii oo aada ku bixiso jaadkii sigaarkii daroogadii dagaaladii qabiilka oo aada ku bixiso iyo dadkii islaynayay dhulkaasoo dhan waa wada xaaraam meelo badan aynu wax ku bixino ayaa had iyo jeer dembi uu kaaga kordhaya adduunyadaadiina ku dhaaftay sadaqadu qodobka 7 noocyay leedahay noocyadeeda waxaa ka mid ah infaaqu lmaal xoolo la bixiyo infaaqu lcilm walcilmu yasku bilinfaaq cilmiguna waxyaabuhu ku bato waxaa ka mid a bixinta haddaad cilmi taqaano maadiyo diini mid kastaba ha ahaatee sadaqayso oo lacagta qeyb ka daah ilaahay baa aqoonta kugu barakeynayo xifdigaa lagu furaya fahamkaa ku wanaagsanaanaya arrintan nagta un loo xarfinayo qofku wixii uu bartay oo dhan uu maal ku wada doonayo ha laga daayo mutacalimiintiina culimo iyo cuquulba
aqoonta qayb la sadaqaystaa waa inay jirto cilmigiina markaa bixintaas ku badanaya arrinka laftiisa iyo istishaarada sidaynu horeba usoo tilmaanay almustashaaru mu'taman ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yidhi qofka la aaminay dee waxbaa la bidayoo waxbaa laga sugayaayo macruuf buu fidinayaa sadaquu fidinayaae haddaba qofka yuu khiyaamaynina talada ugu fiican ha siiyo mar baa la yidhaahdaa arrinkuba uu ka qaalisan yahay adduunka ama wax ku siiya waad aragtaaye wax kuu sheega wax kuu sheega wax ku siiya waad heshaa wax kuu sheegaanad helin bay yidhaah mararka qaarkood wax ku siiya waad helaysa laakiin arrin wanaagsan cid kuu sheegta ama kula talisa inaad helin baa laga yaabaa alkalimatu ayiba kelmadda wanaagsan baa iyaduna sadaqa ah siduu rasuulku ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa imaadat ladaa cani ariiq wadadaasoo dhagaxaanta iyo boholaha iyo waxa ummadda waxyeelaya dhaawaca u geysan lahaa aynu ka qaadno ama aynu laami marinaynu samayno sadaqooyinkay ka mid alqardu lxasan amaahda had iyo jeer cidaad amaahayso xadiidka sunanka ku sugana saxiixa nabigu wuxuu ku yihi haddaad qof 2 jeer u amaahayso adigoo siiyo kalay ka dhiganta 100,000 baad amaahaysa markuu soo celiyaad mar labaad ugu celis waa adigoo siiyey 100,000 oo kale alqardu lxasan deeq bay weeye markaa waayo qofkii uu maalaya waxaa ka mid a tasliimka salaanta aada ummadda salaamayso iyaduna waxa weeye sadaqooyinka ka mid adkaarta ayaa sadaqooyinka ka mid ah dikriga aada akhriyayso intabana daliil ayaa ku wada jira xaaskaaga oo aada xoolo siinaysa iyo masaariiftii ama aada uga galmoonayso ayaa iyaduna sadaqooyinka ku jirta sidii uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa mid idinka mid ah mucaamaladu xaaskiisa la samaynayo iyaduna waa sadaqo atabasum ayuu nabigu ku daray tabasumka macnaha inaad walaalkaa weji farxad leh ku qaabisho oo aan ka nixinaynin sadaqooyinka ay ka mid tahay waxaa ka mid ah alwarac xalaal mirashada iyana waa sadaqo ayaa lagu qori waxaa ka mid a qofka wixii laga xado ama bahalku kaa cuno haddii lagaa xado iyo haddii lagaa dhaco iyo haddii bahal kaa cuno iyo haddii shimbiro kaa cunaa wax alla waxaagu ama xero ilaahay bay kugu jiraan ama xero adduunyay kugu jiraan kol hadduu xalaal ahaado waxaa ka mid a sadaqooyinka indaaru lmucsir qofka caydha ee aada wax amaahisay kol haddaanu isyeelyeelayn inay ka bes tahay inaad isagana ka sugto waxa uu nabigu ugu dambaysiiyey calayhi salaatu wasalaam kafu shari can innaas inaad dadka ka daysata dhibaatadaada iyada qudhigeedu waa qeyb iijaabiya dadkii waxbaba maad siinin haddaanad waa kii asxaabi weydiiyey intaasoo sadaqa haddaanan midnaba samaynin ka waran dadka unbaad dhibkaaga ka daysanaysaa buu nabigu iyada lafteedaaba sadaqa ku ah oo haddaanad waxba yaana tarin haddaanad waxyeelin sadaqooyinkay ka mid afdalu sadaqaat sadaqooyinka waxyaabaha u fadli badan waxaa ka mid ah sadaqada uu bixiyo qofka caafimaadka qaba ee bahasha qabqaba leh ee ururinaya markii rasuulka la weydiiyey wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam afdalu sadaqati an tatasadaqa wa anta shaxiixun ta'mulu alghinaa wa takhsha alfaqr diidkii saxiixayn sadaqa waxaa u fadli badanta uu qofka isagoo caafimaad qaba bixinayo oo maalkiina jecel oo isla yaro biiriyo taajirada gaar oo isla fuqarada hoosa ugu dhicin caydh baa jirta iyo busaarade warwarkaa isagoo qaba haddana markuu naftii intuu la dagaalamo muquuniyo oo uu dhiibo mood iyo nool mid kasta ha ahaadee jihaad buu ka soo baxay ninkaas sadaqada kuwayaalaha u fiican waxaa ka mid a juhdulmuqil qofka wax yarba haysta inta uu iska soo jaro waa ka rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam sabaqa dirhamun bi100,000 dirham dirham baa wuxuu ka dheereeyey 100,000 oo dirham siduu uga dheereeyeyna waxa weye dee ninkani 200,000 oo dirham ama lacag badan buu haystaa milyana markaasuu dabeetana 100,000 bixiyey dee waxaa u hadhay 9 meelood kanina 2 dirham baabuu haystaayo mid buu bixiyey dee 50% buu xoolihiisa bixiyey waxaa ka mid a sadaqooyinka sii fadli badanta aqaaribta la siiyo rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam sadaqada la siiyo miskiinka waa sadaqo taxigtada la siiyana sadaqana way tahay silana way tahay sadaqana way tahay qaraabo xidhiidhina way ku jirtaa sadaqa maxay yidhahdaan sadaqo
bixiyo sokeeyo si ay yidhahaan soomaalidu waa xikmad weyn nabigaa dhiiriye calayhi salaatu wasalaam waynu garan karaynaa abu dalxa markii uu sadaqaystay beertii weynay rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qaraabadaada si waxba ku xili maayo xoolahan ka qaadi maayo intii kugu xeernayd u qaybibu Abdullah ibn Mas'ud xaaskiisa ayuu arkay Zaynab iyada xoolo bixinaysa markaasuu yiri Zaynabay aniga iyo caruurtaaba u baahaneen bal hadda noo dhiib kiishada lacagta ama adduunka aad sii wado war ma la idinku bixi maysabayt nabigaaba la isula tagay calayhi salaatu wasalaam sadaqa ibn Mas'ud sadaqa Abdullah rubu sheegay waxa aad bixinayso odayga iyo ubadka sii inkastoo halka laga yaabo marka waajib isagu uu bixinayo inaanu caruurtiisa iyo xaaskiisa siinaynin sakadii sadaqada fiican waxa kamid ah sadaqada la siiyo qofka alla yaqaanka ee adaabta wanaagsan ee Ilaahay ka xishoonaya ee anfacaad siisay diinta u kaashanaya ku cibaadeysanaya wala yaakul ta'amaka illa taqi raashinkaaga ha cuna buu nabigu qofka alla ka cabsanaya markuu casuumad cid ka cuna rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ducayn jiray ducadiisa waxa kamid ah akala ta'amakum al-abrar wa aftara 'indakum as-sa'imun wa sallat 'alaykum al-malaa'ika raashinkiina ha cunaan dadka Ilaahay ka cabsanaya kuwa soomanina agtiina ha ku afuraan malaa'igtuna ha idin ducayso marka qof khamri ku cabaya ama jaadiya sigaar ama wax ku kharibaya intii aad xoolahaaga siin lahayd qof diinta Ilaahay u kaashanaya oo dacwada u kaashanaya oo quraanka u kaashanaya oo khayrka u isticmaalaya waxaaga ku ururi faa'iidadiisu markaas ay fiicnaanaysa waqti sadaqooyinka u fadli badan waxa kamid ah waqtiga majaacada iyo maxaawilta waqtiga ay baahidu badan iyo dadka aad u sii baahan qof de baahan iyo qof aad u sii baahan sadaqadaasi saaway kala duwanta sadaqada aad ku bixiso waqti la iska ladan yaad bixiso ama wadan iska barwaaqa dhexdiisa aad ku bixiso iyo meel aad loogu gaajaysan yahay sadaqada aad ku bixisana way kala duwan tahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam sharru ta'amul walima yud'a ilayha al-aghniya wa yurad anha al-fuqara ala ma'na al-hadith sadaqa waxa u liidata casuumadaha u liita sadaqada oo aan fiicnayn waayde xaq ajriga marka la eego dad aqniyo maal qabeenana waa loogu yeelaya qaar fuqaraana waa laga celinaya xagga gudaha dadka wax lagu siinaya suxuunta iyo macaanka iyo loo dhigaya khudradda waa dad kala miiraya oo la kaayiga daa macaan baan qabaa cholesterol baan qabaa bal inta in yar iga soo qaad saas uu finidaya halkan dabada marka loo soo dhigo dadka iyagu kada looba ama taagtaagan aan saliba ku fadhiyna baruurtana way ruugayaan lafahana way kaga sanqarinayaan sinxigana way safaynayaan baashu saasay ku xaraga badanta waxaan ilaa waa la kariyo cun in la cunaa loogu tala galay marka dadkii gudaha joogay iyagiyo alaabtii halkii wada taalo ayay iskaga tageen adigoo ciishoon oo la war wixii aad dadkan u kariseed ku casuumteen mabay cunin ayuunbaa qola dabada joogto loo goynaya sinxigaba boor baa ka duulaya saasay ku fiicantay baasha marka sadaqada waxa si wanaagsan buu nabigu leeyahay ta qof baahan la siiyay iyo waqti baahan iyo meel lagu baahan yahay ilaahay baa wuxuu falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw id'am fi yawm dhi masqaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama inaad waqtiga adag iyo dadka baahan iyo agoomaha iyo xigtada gaajaysan inaad inta xoolaha wax ka siisaan waxa weeye caqabadii insaanka hor taagneed oo aad ka talowday shaydaanka iyo abaariistu caqabad dhagax bay ku hor dhigayaan dhagax wadada jannada u maraysa dhagaxaan baa yaala dhagaxaantaas waxa weeye inaanad xoolahaaga waxba ka bixin faralka ka bixin sunno ka bixin sokeeyaha siinin bulshada baahan duruufta aanad kaga qayb qaadan dhagaxaas yaala marka laakiin inta aad wax siiso dhagaxii baad xagga isaga riid askarigii jiifay ee socodkaaga iyo xawligiisa hor joogay waad iska fujisay jannadii baa wada dhaadhacday mar hadaad shahaadanayso islaamka salaah cajiibka abu quraanku bixiyay sadaqada markaynu eegno sadaqooyinka qodobka sideedaad waxa u fadli badan sadaqada sida sirta ah loo bixiyo labada siyoodba waa loo bixin karaa laakiin meelaha qaar kood bay si fadli badan tahay sadaqada qarsooni
marka shakhsiyaad la siinayo taqarsoon baa fadli badan marka mashaariic caama oon cidna loogu manno sheeganaynin oo dhiirigelin loo baahan yahay lagu bixinayana muujintay ku fiican masaajidkan yaa dhisay jihaadkii baa loo baxayaa howlahaasaa la fulinayaa tanihii caamka inaga dhexeeyey taasi cidna damqi mayso si la isugu daydo muujinteedaa fiican masjidka dhexdiisaanu nebigu ka yaboin jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin marka qof hebel wax la siinayo dee maxaa ka faa'iidaa inaad tidhaahdo dadkan ou arka war bal isoo eega hebel baan ku taabanayaa wax alla wax ka faa'iidoon inuu isagii ka naxo wuu ka naxayaa diiqad bay ku tahay sidaa daraaddeed baa dadka dadaalaya saalixiintii cid kale ay tusaan iska daayo ka qaadanaya laftiisa ka qarin jireen ka qaadanaya qudhiisa faraqa loogu xidhi jiray ama akoonkiisa aad ugu ridaysa adigoon magac ku qorin ama jeebkun baad ugu ridaysa goordhow markuu taataabto isagoo daydeeya wuxuu iskaga bixiya afurka ayuunbuu kuus weyn ka helayaa jeebka dee markaa ducaaba ka dhacaysa siyaabahaasay kusii fadli badan tahay labada dariiqabana in loo bixin karo ilaahay qur-aanka wuu ku caddeeyey in tubdu sadaqaati fanicmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum iyadaa khayr badan mar haddii dad baahan la siinayo maraatib lbadli walinfaaq xagga darajada marka la eego qofku ama dadka wax bixinaya martabatu sakhaa wa martabatu ljuud wa martabatu liithaar saddexdaasee u qaybsantaaday leeyihin culimadu martabatu sakhaa waa qofkii oo bixinaya waxbuu bixinayaa kumana adka martabada labaadna waxa weeye qofkii oo wax bixiyey taa hore wixii badnaa buu la hadhay in yar unbuu bixiyey martabat ljuud baa la yahay martabat sakhaa baa la yahay martabat ljuudna waxa weeye qofkani intii badnayd buu xoolihiisa bixinaya ama wuu isleegeysiiyey intuu bixiyey intuu la hadhay sidii cumar bn khadaab radia allahu canh martabat liithaarna waxa weeye qofka oo wax yar la hadha wixiisi 80% oo kala bixiya ama wixiisiiba wada bixiya taasina way iskaba adag tahay oo asxaabtu baabu ilaahay ku amaaray dadka intooda badan way ku adagtay sidaa daraaddeed baana qur-aanku yidhi ha wada bixinina liannahu warwarkaa ku badanaya dad qofkii kari karaya mooye kii hadhow ka warwaraya ha wada bixinin baa lay waxaaga walaa tabsudha kulla albasd haddaad wada bixiso hadhow baad warwari madaxaad xoqan bal xaggaan waxu doontaa shaydaan baa qaaday maxaa yeelaa markaa intaad warwari lahayd waxaaga barhayso asxaabta ilaahay uu ku ammaano wuxuu uhi wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun iyagoo u baahan bay isdhaafiyaan wixii ay markaa bixin lahaayeen taana nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam tusaale u ahaa asxaabtiisuna way ku raaceen sidii aynu ogsoonayna ninkii martida ahaa ee nebigu uu soo diray dee cashadii ciyaalkaa la siiyey ooridii iyo odaygii intay isu tegeen ayay cashadii ciyaalka siiyeen caaisha allaha ka raali noqdo waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam cahdigii ay noolayd markii uu madaxda ahaa cabdillaahi bnu zubayr oo habaryare u hayd ayaa wuxuu u soo diray 800,000 180,000 ayuu usoo diro dirham way qaybiso iyaduna maalintaa way soo maray shaw waxbaba kamay reebinba lacagtii faraha badnaydu inaan kaa habaryarta ay u tahay usoo diray gabalku kolkii u dhacay bay jaariyadeedii la hadasho waxay tidhi dee waxaynu ku afurno un maad inooga reebtid soo adigayna xaalufiye waxay tidhi oo dee adigu maxaad iigu sheegi weyday in wixiiba dhammaaday maadi ogeysiisid miyaan kaba warhayeyba neerfaha bixintunbaa i shaqaynaye neerfaha haysashadu dee miyuu i shaqaynayabat marka cumuuman waxaa halkaa ka muuqday oo aynu arkaynaa sadaqadu dee maaragtay darajooyinka ay leedahay bal inaynu ku dadaalno unta ugu horeyse marxalatu sakhaa ama martabatu sakhaa aan idhaahno qofku wax yarun wixiisa uu ka bixiyo tiro aan badnayn si aanay culays ugu noqonin iithaarkiiba aqsaam laba yidhaahdo qofku waktiga uu khaaliqa ka doorto makhluuqa ama adduunyada uu ka doorto aakhiro uu ka doorto adduunyada waktigaasuu sadaqadana iithaarka samayn karaa khaaliqa iyo makhluuq waa inaanay kuu simin diinta iyo duunyada aakhiro iyo adduunku markaanu